in ay nolol iyo geeriba ku soo qabtaan mas'uuliyiin xasaanad leh kuwaasoo colaadaha halkani ka dhacay uga qayb qaatay af iyo maalba bismillaah shalay taariikhdu ahayd 10kii bishii 11aad 2025 waxaan nimid xafiiska xeerlaalinta haddaan nahay ciidamada qalabka sida degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana u nimid dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday degmada Walaweyn taasoo ugub ku ah geeyiga Soomaalida dhacdadaasoo lagu gubay oday waayeel ah oo 60 jir ah degmadani Walaweyn odaygaasoo dhimir ka xanuunsanaa isla markaana jirdil iyo gubid la isugu daray dhacdadaas ay u timid xafiiska xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida si dhacdadaas ay baaritaan ugu sameeyso sida ay wax u dhaceen isla markaana ay gacanta ugu soo dhigaan maleeshiyaadkii xadgudubkaasi joorfalkaasi ka dhax sameeyay degmada Walaweyn wuxuuna cadaaladda horgeyn doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida raggii falkaasi geystay oo qaarkoodna ay xiran yihiin qaarkoodna lagu daba jiro oo ay soo qabanayaan laamaha amniga farxadkooda waxa kaloo dhacday dhacdo kale oo ka dhacday deegaanka Yaaqbari Weyne dhacdadaasoo sababtay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca 5 qof waxaana ku baxay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala dhex galay isla markaana dambiyay colaadii halkaasi ka soo bilaabanaysay ee dhimashada iyo dhaawacba sababtay waxaan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka danab iyo guutada 7aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay degmada Walaweyn ku amraya in ay nolol iyo geeriba ku soo qabtaan kuwii laayay dadkii shacabka ahaa ee shalay sidoo kalena gubay ceelkii Yaaqbari Weyne iyo tuuladiiba sidoo kale waxaan dhammaan maleeshiyaadka reeraha ee ku sugan degmada Walaweyn ku amraya in ay u hoggaansamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qoraal sharci ah u haysto in ay soo qabtaan dambiilayaashii loo haysto gabood falladii ka dhacay deegaankan sidoo kale waxaan baaristeena shacabka Soomaaliyeed ugu soo bandhigi doonaa mas'uuliyiin xasaanad leh kuwaasoo colaadaha halkani ka dhacay uga qayb qaatay af iyo maalba wabillahi tawfiiq 360 75 hours 10-6